waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بدا وضياشة قيمة بدن يعني هو ذا كحيرنو وروحي دلكي دبدا نجسوا كاري وعاد حلية ذا نقل وجبرتين تلفزيون كعالمي جاهي سومالي channel أيا عن إدين سوق بنتو أنا حدي إلى هاي أقول هذا تلفزيون كلابد أما استوديو هاللابد التلفزيون كل هاي مجالات نيروبي أيانا إدين كجسوا بنتو أنا ورك حدي إلى هاي إدمو أنا أقول شكر محمود أفراح أيانا وديارة وده بدا أقدر كرم ورك يعني إدين هاي أيا وحكم ده guddiga dabagalka iyo la socodka arrimaha dibadda ee baarlamaanku uu xil saaray in ay arrimahaasi xuquuqaal u ahaadaan ayaa waxa ay u soo jeediyeen uguna baaqeen guud ahaanba madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya in ay ka qayb qaataan bay yiraahdeen sideynta dhalinyarada Soomaaliyeed ee iyagu ku xirxiran inta badan caalamka xabsiyada ku yaala kadib dhibaatada dalka Soomaaliya ku dhacday oo ay raadinayeen nabad iyo nolol intaba madaxweynaha dowladda goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole ayaa waxa maantay uu ka degay magaalada madaxda dowladda goboleedka Puntland ee Garowe muddo 50 maalmood ah ayuu uga maqnaa dalka dibadda gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan iyo gudoomiyaha degmada Beledweyne Xildhibaan Jeeso ayaa waxa uu ka soo horjeestay shir agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya uu ka furay magaalada Beledweyne kaasoo uu sheegay inuu yahay mid aan loo dhamayn munaasabad iyana ballaaran oo ay ka soo qayb galeen maamulaha degmooyinka Luuq iyo Doolow ee gobolka Gedo laguna xusayay maalinta cuntada adduunka ayaa waxa soo qaban qaabiyay FAO iyo WFP waxaana lagu qabtay degmadaasi Doolow qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin hayaaye qadar adeega bulshada ah aan ku wada sugno madaxweynaha dowladda goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole ayaa waxa uu maantay dib ugu laabtay Puntland magaalada madaxda Puntland ee Garowe ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay kadib markii muddo 50 maalmood ah uu dalka dibadda uga maqnaa waxa warkaasi nooga soo diray magaaladaasi Garowe Faysal Khaliif waana kan warkii oo faahfaahsan madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud oo maanta ku soo laabtay magaalada Garowe kadib socdaal kala duwan oo qaatay muddo 50 maalmood oo ku soo maray wadamo kamid ah caalamka madaxweynaha oo si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ayaa markii uu soo gaaray waxa uu salaan sharaf ka qaatay ciidamada waxaana sida caadada ah dhex maray madaxdii iyo mas'uuliyiinta iyo shacabkii soo dhaweeyay kadibna waxa madaxweynaha loo soo galbiyay dhanka qasriga madaxtooyada Puntland waxaana ka muuqatay dhammaan inta u dhaxaysa airportka iyo qasriga madaxtooyada ciidamo aad u fara badan oo amniga sugayay tan iyo saaka subaxdiina waxa xidhnaa jidadka waaweyn ee magaalada qayb kamid ah madaxweynaha oo la hadlay warfidiyeenka ayaa jeediyay khudbad dheer oo uu kaga warramay safarkiisii waxaana uu madaxweynuhu kala dhigdhigay arrimo dhowr ah oo dhex maray dowladda Puntland iyo federaalka isagoo oo ku hormaray shirkii Brussels ee looga hadlayay qorshaha New Deal-ka waxaana uu madaxweynuhu sheegay in sababaha ugu waaweyn ee shirkaasi u tageen ay kamid ahayd si ay u matalaan shacabka Puntland danahooda maadaama aysan ku halayn karin dowladda federaalka ee haatan jirta waxaan ka sii aadnay sidaan horey ugu sheegay shirkii New Deal waxa weeye qaabka cusub oo Soomaaliya loogu talagalay in dib u dhiska loogu sameeyo oo markii horena casumaadiisa beesha caalamka ay qalqaalinaysa Nairobi aanu ku tagnay qorshaha iyaguna oo ahaa inaan anagu dalka iyaga iyo dadka iyaga masalo baan cidina wakiil nooga ahayn
sidaan horeba u sheegnay beesha caalamka oo aanu shirar badan ka sheegnay qoraalana ka soo saaray inaan dowladda xamar annaga naga masli karin danaha iyaga iyo beesha caalamka shirarka ay qabanayso midna iyo madi gudaha midna ilaa la dhammaystiro wixii lagu heshiiyey oo ahayd in dastuurkii la saxiixay ay dib ugu noqoto dhibaatooyinka iyo hagadaamada ay ku hayso maamuladii kale inay dhashaanna ay joojiso wada shaqayntii aan shardiga uga dhignay wixii shardiga uga dhignay haddaba ay ka waantowdo oo carqaladda ay Puntland laftigeeda ku hayso iyo qashqashaada iyo wixii lagu heshiiyey oo heshiisyadii hore oo dowladihii iyada ka horreeyay oo meel gaarka ah Sheekh Shariif iyo ra'iisul wasaaraha laftigiisa dowladda federaalka bishii Maarch halka aan ku heshiinay ay ka hirgeliso. dhanka kale madaxweynuhu waxa uu ka hadlay heshiisyada la xidhiidha shidaalka gaar ahaanna heshiisyada shidaalka iyo gaaska ee ay gashay dowladda federaalku dhawaan waxaana uu sheegay inaysan dhankooda ka soconayn heshiisyadaas tartan shidaal baa Soomaaliya hadda soo galay oo shirkado ajnabiga oo ka bilaabmay dhinacaas Muqdisho some oil and gas iyo shirkado la DNO arrintaas wax badan baan ka hadalay qoraalna waa ka sameynay iyay dhibaato inoo keeni dadka arrintaa ku shuqulano iyay dhibaato keeni shuruuc baa ka taal dalka dastuur baa yaala ciddii meeshii iyadu ay degan tahay oo awood u leh oo awooddaas dastuurku siinayo dowladaha gobolku siinaya awoodda inay shidaalka iyadu ay leedahay ilaa dib loogu noqdo dastuurkii. waxa kale oo madaxweynuhu ka hadlay hantida guud ee dadka Soomaalidu leeyihiin ee caalamka taala sida hantida ay hayso hay'adda hawada ee ICAO kuwaasi oo sheegay inaan gacanta loo gelin doonin cidna ilaa la dhameystiro sida uu hadalka u dhigay wixii dadka Soomaalidu ay ku heshiiyeen. hantida Soomaaliyeed oo dibadda taala oo ay ka mid tahay airspace-ka waxa laga helo iyo maamulkiisa ilaa la dhameystiro maamulkii loogu talagalay Soomaaliya in dowladda federaalka ay ku dhameystiranto oo dowladda dastuurka qaadato ayna dhiirigeliso maamulada dhismahoodii lana laga wada hadlo sidii khayraadkaas dalka ay looga intifaacsan lahaa wixii heshiis laga galaa waa sharci darro ICAO-na waxaan ugu baaqaynaa inayan wareejin hantidaas Soomaalidu ay leedahay ilaa shuruucdii dib heshiisiinta Soomaaliya dhamaan. ugu dambeyntii madaxweynaha Puntland waxa uu ka hadlay arrimo la xiriira doorashooyinka Puntland waxaana uu sheegay in Garowe ay ka dhici doonto tartan xor ah isla markaasina ay ka mid noqon doonaan tartankaasi. doorashadan kama bedelna kuwii hore u dhici jiray jawi nabad ku dhici doona dowladda maamulaysa magaalada Garowe ammaanka ee dowladda qaadaysa madaxda u tartamaysa tartankana waxaan rajaynaynaa inay shuruuc dalka u hoggaansamaan waardiye shakhsiya oo guriga degan yahay iyo hoteelkiisa iyo markuu magaalada maraayo ilaalisa oo kooban iyo qoryaha ugu yaryar waa loo ogol yahay laakiin looma ogola in meeshaan milishiyooyin iyo ciidamo la soo gasho. Faisal Khaliif Barre, Somali Channel, Garowe. guddiga dabagalka arrimaha dibadda ee baarlamaanka u xil saaray inay la socdaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo howlaheeda ayaa waxa ugu baaqay madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya in ay ka qayb qaataan sii deynta bay yiraahdeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee iyagu ku xirxiran qaar badan oo kamid ah jeelasha caalamka kadib markii ay dalkooda uga carareen raadinta nabad iyo nolol intaba. Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto ayaa faafahinta warkaasi Muqdisho nooga soo diray. gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Professor Maxamed Cumar Talxa oo u waramayay Somali Channel ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr oo ku aadan xaaladda guud ee dalka waxaana uu ugu horeyn ka warbixiyay dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ku haysta xabsiyada qaar ka mid ah dalalka caalamka. wax badan baa taagan oo aan ka xanuunsanayna sidii wax loogu qaban lahaa maxay dhalinyarada xataa qaar ba maanta Talyaaniga maraan tagay termin qaar waa shay baad arkaysaa oo u baahan xanaano oo sidii ayaga ay hadba xuduud looga soo celinay faraha laga qaaday iskaga waasheen meesha oo cid u maqan aanan jirin kuwa hadda xabsiyada iyaga waxay iska noqdeen wax isdhiibay oo noloshoodii waxay ku dambeyn doontaa ilaahay og meelay qaarna si voluntary inta anagu aan isxilqaanay hadda iskaga tagi jirnay oo aan soo dayn jirnay haddana waxa waaye waxaan jirin barnaamij
oo xukuumaddii ama baarlamaankii ama dawladdii oo iyada laftirkeeda facting fighting machine inta iyada ay maartay hataa samayso xuquuqda adduunka waxa weeye heshiisya lagu kala jiraa heshiiska haddii lagu xadgudbo مثلا Geneva Convention oo kale ban qorayo in dalkiisa dhibaato ay ka jirto intuu soo carara soo qaxoota la iska xirto waxyaabaha raqiiska ay hadda inta badan loo aanayo marka koronto ma iga rumaysanay daraad mana soo safray Nairobi 17 dhalinyaro ayaa waxaan arkay saf inta la geliyo dhinac loo la yiri maartay wixii ay wateen document ah oo sharci ah hadana la yiri maartay waa la idinka shakiyay taa marka xataa dhalinyaradii Soomaaliyeed ninka dhalinyaro ah حتى هوت واحد نظام صني واحد شرعي سن يعني وحو اسكا نقدين مارتي هوس مارتي كاريقن oo indhaha lagu hayo marka waxa soo dhan waa siyaasadda oo aan laftirkeeda dawladda aan fadhinin magartay marka eegtid waxa la aqoonsaday kumeel gaar baan ka baxnayna aniga wari ma ii sugna wax cadeynayo sababtoo ah dawladdan ay waa idin aqoonsanay safaaradda halka u joogo ayaa baasaboorkeena diyaar u haynay fiisa ku dhuftaan waayo bal aqoonsiga aniga ay ana siyan garan maayo dawladda Kenya waa aqoonsan tahay haddana stinger ayaa lagu dhufanaya ma arkay baasaboorkaaga dawladaha hadda tagtay Yurub qaar Belgium tag waxa lagu siinaa xaashi xildhibaan Professor Dalxa oo soo hadal qaaday sida looga gudbi karo dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku baaqay in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed isagoona madaxda dawladda iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan siideynta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan xabsiyada qaar ka mid ah dalalka caalamka ana xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa bulshada Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda iyada mas'uulka ah baarlamaanka asaga magaca shacbiga Soomaaliyeed wakiil inuu ka yahay maartay dhaar ku maray yani in wixii على الأقل xukuumadda ay qaban laadahay ama xataa iyada ay ka leexleexanayso inuu baarlamaanku ku tirtirsiyo oo kula xisaabtama dadka Soomaaliyeed ee xabsi maxad ka tiraadeen maxad ka qabateen ma ay safaaradu la iska magacaabo maalin walba oo waxay qabanayaan aan la garanaynin ama inay dalalka noo dhex fadhiyaan oo halkaas iska gurtaan maartay dhaqaale oo ma scholarship-yadii umada loogu talagalay la kala dalaalo ma garatay waxa soo dhan waxa ka sii muhiimsan in la helo ama xataa guddi dawladda oo isku dhaf ah dalkii laga soo qayliyaba la yiraahdo hal la aado waxa ay ku dhacday xaaladdaas la soo baaro South Africa oo kale way soo noqotay ilaa iyo talaabo meedaysan ee dawladdu inta ay qaaday ee dhaqaaqday male waan laga wareegan lahaa hadii hal mar ay dawladdu ay ku guulaysato ama xataa يعني لا يرادو ما aragtay sida anaga nama qabato anaga wayna soo mareen arimahan oo kale Suuriyan kaga soo deynay ma artay boqolaal oo wali anu gudoomiyaha baarlamaanka ah madaxweynihii ma artay Bashar al-Assad ee haddana wali bay jooga aan kala hadalnay haddana sidii bay Suuriya ay ugu buuxaan dad xiran Kenya ka sii deynay anaga oo aan ciidan markaasi aan la kaashanin waxay u baahan dawladdu in la hadlo kaliya markaas waxay diyaar ay u yihiin wixii in markaasi dawladnimo arimahaasi lagu soo dhameeyo laakiin dhaqdhaqaaqa horta waa in adiga ka yimaada ninka dhibaatada haysto adiga gabadhii goraanadkii waxaan leenahay dawladda Soomaaliyeed arinta dhibaatada taagan laba arimood sidii looga hortagi lahaa iyo sidii wax looga qaban lahaa waa inay u istaagtaa koow dhalinyarada waxay u ordayaan waa shaqo la'aan waa in sidii shaqo loogu abuuri lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed la helaa shaqooyinkan la bixinayo laftirkooda waa inay noqdaan shaqo lagu bixinayo qaab cadaaladeed waxbarashadan ee dalka soo gaarayso waa inay noqotaa dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa ay uga faa'iideystaan qaab cadaalad ku jirto waa in dhalinyarada Soomaaliyeed xataa haddii askar la qorayo waa inay u helaan fursadaha si siman oo Soomaalinimo oo aanan wadanka lagu kala maartay sad bursiina maartay meesha soo galayn waa in maartay wadanka dawladdu isu xil saartaa wacyigelin joogto ah sidii loogu sameyn lahaa dhalinyarada oo wadankooda loo jeclaysiin lahaa kalsoonina loo gelin lahaa kuwa dibadaha joogana ayagana siday iskugu xirmi lahaayeen ayaga iyo dawladana ay iskala maartay shaqayn lahaayeen sidii maartay kuwa xabsiyada ku jiro iyo kuwa maartay xataa dhibaatada joogtada ah ee dhaca iyo dilka loo geysanayo hadda tusaale iska noqotay South Africa oo kale in ayagana
jaaliyado oo ay ku midaysan yihiin ee lagala xiriiri kara warbixin joogta ahna safaaradda ay ka soo bixin karto iyadana iyo arrimaha dibadda oo isku xiran halkaasna maartay wixii baarlamaanka hawshiisa kaga aadan annagana ka gudi ahaan doorkeena saan wada ciyaarno iyadana in laga wada shaqeeyo. cabdulqaadir cali xuseen koronto Somali Channel magaalada Muqdisho. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan iyo gudoomiyaha degmada Beledweyne xildhibaan Jeeso ayaa waxa uu ka soo horjeestay shir buu yiri oo agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya uu ka furay magaaladaasi Beledweyne. shirkaas ayaa Jeeso waxa uu sheegay inuusan ahayn mid loo dhan yahay. Usmaan Aadan Carays wariyaha nooga soo warrama gobolka Hiiraan ayaa faafahinta warkaasi noo haya. hadalkani ka soo yeeray gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Hiiraan kusimaha gudoomiyaha gobolka Maxamed Sambuur iyo gudoomiyaha degmada Beledweyne Cabdi Bashaar Aadan Raaha ayaa yimaaday kadib markii maalintii shalay shir looga hadlayay arrimaha maamul sameynta gobolka Hiiraan uu ka furmay magaalada Beledweyne taasoo abaabulay agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee amniga qaranka dawladda federaalka Soomaaliya ee maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. soo mas'uuliyiintani ay sheegeen in beesha ay ka soo jeedaan ay ka maqan tahay oo shirkaasi socon karin. waa kan gudoomiyaha degmada Beledweyne Cabdi Bashaar Aadan oo halkaasi ka hadlaya. waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo anigoo ah gudoomiyaha degmada Beledweyne shalay shirkii lagu qabtay guriga gudoomiyaha anaga goobjoog ayaan ka ahayn. hase yeeshee warka meesha ka soo yeeray beesha gaaljecel oo shirkaani ka maqan ma qabsoomaayo ayadoo ay go'aan inta beel ka mid ah beelaha degan gobolka Hiiraan ay ka maqan tahay inuu shirkaasi qabsoomayn. hase yeeshee idaacadaha iyo telefishinada waxaa laga soo deeyay in arrintaasi iyada ah aan laga soo deynay shirka waa soconaa gaaljecelna cag loo dhigi maayo. arrintaas iyada waa ka soo horjeednaa mana soconayso cid qaban kartaanu ma jirto. sidoo kale halkaasi waxa ka hadlay kusimaha gudoomiyaha gobolka Hiiraan ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka Maxamed Sambuur oo isna sheegay inay suurtagal lahayn shirkani inuu sii socdo. Hiiraan ka yihiin ereygaas waxba kama jiraan sida cadaynayo calculation uu sameeyeen ma jirto. beesha waa 10% kama Hiiraan wax uu lagu qaybin maanan arag ereygaas waa khalad. agaasimaha ka soo yeeri erey mudnaanta ay beesha gaaljecel u leeyihiin ma shirka lagu qabanayo gobolka Hiiraan degmada Beledweyne intay beelaha Hiiraan beel kamid ka maqan tahay wax macquul maaha inaan colaad abuurno mana dhici doono mana dhici kara sida aan qabno. arrinta kale beesha gaaljecel ay ka dhawaajisay ama siyaasiyiintooda ama xildhibaanada ama wasiirkooda oo ayaga ayaan ku raacsanay kaga mowqifnahay. xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya sheegayna inuu ku aysan yahay hadalka ay jeedeen mas'uuliyiintani. marka waxaan rabaa oo hadalkayga ku soo koobaya qof ka maqnaa iyo qof Hiiraan jooga iyo xildhibaan xaq u lahaa asaga inuu soo xulo ergada imaan doonto haddii Ilaahay yiraahdo hortaba ay noo qabsoonto. qof kasta oo dhibsaday arrintaas waan ka raali gareynayaa mar allaale markii arrimahaayna aan soo gabagabaysanana annagoo saxaafadda iyo xiriirka caadiga ee dawladaba u marayna ayaan si waadax u sheegaynaa goorta ay wax noo soo gabagabaan. aad baan u mahadsantahay. waxay ku xiran tahay dawladda ay u dhaqanto beesha waxay tabanaysaa la faahfaahin taasoo ah cabashada beesha oo cid walba oo mas'uul ah madaxweyne ugu sareeyo ula tagtay iyadoo bah iyo boqor leh. maantana waxaa jawaab labaad laga bixinayaa shir xalay la yiri waxaa loo dhan yahay gobolka Hiiraan dadka degan looma dhamaaleenay beesha gaaljecel kuma jirto shirkaas waxay qaadacday nidaamkii dawladnimada ay dhan ay ka qaadacday waxay u qaadacday way cadeysay. walaalaha hiil walaal Amisom waxaan ka codsanaynaa arrinta inay soo fargeliyaan arrintaas maadaama amniga ay wax u dhimayso inay dawladda u gudbiyaan message-kaas. shirkaas anagu waan qaadacnay horeyaan u sheegnay qayb kama nihin mana ka noqon doona inay beesha xuquuqdooda keenayso. anagoo ku hadlaya afhayeenka guud ee beesha gaaljecel mar labaad waxaan dilaynaa arrintaas inaan dhibaatadaas aan loo horseedin. ayadana guddiyo kala duwan
marka ay ayaga guddiyo kala duwan marka ay howlahooda soo qabtaan layskugu soo noqon doono ayadoo lixda gobol ee ay beesha degto iyo qurbajoogta ay iskugu imaan doonaan shirweyne dambe maalgashi iyo mashaariic horumarineed lagu samayn doono deegaanada beesha islamarkaana la horeeyo deegaanada aan gacanta ku jirin beesha waxay gobol u fidinaysaa walaalaha sarasoor ee degan Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya. 9 in qurbajoogta beesha ay yeeshaan guddiyo dameedyo. Ismaan Aadan Carays, TV-ga caalamiga Somali Channel. qaar iyagu ka mid ah haweenka ku nool magaalada Kismaayo ayaa maantay waxa ay banaanbax ay ku taageersan yihiin ka shaqaynta arrimaha nabadgelyada ee deegaankaasi ee gobolada Jubbooyinka guud ahaanba ay ku qabteen magaalada Kismaayo. Qadar Maxamuud Xareed ayaa nooga soo warama magaalada Kismaayo waana kan banaanbaxan oo lagu taageerayay ka shaqaynta arrimaha nabadgelyada deegaanada gobolada Jubbooyinka iyo gogosha nabadeed ee la filayo in dhawaan lagu qabto magaalada Kismaayo ayaa waxa soo qaban qaabiyay qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada Kismaayo waxaana uu maanta barqadii uu ka dhacay fagaaraha Isbartibo Vecchio ee magaalada Kismaayo. qaar ka mid ah haweenkii ka qayb qaadanayay isu soo baxan oo ka hadlay goobta ayaa sheegay in haweenka ku nool gobolada Jubbooyinka ay u taagan yihiin sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha nabadgelyada deegaanada gobolada Jubbooyinka. nabada la fidiyay Soomaaliya oo dhan ay gooshin wada isku timaad kan tagaras asayr illa kan tagaras adana haweenka Soomaaliya qabiil malihin waxaana ay bidnimo waxaana ay qoys malihin waxaana ay qaran waxaana hogaamiyo oo taageersanahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha Saacid gudoomiyaha baarlamaanka شرع سؤال وقواش نبض وقود وحنو يا رينا أو سؤال ويننا حسن افتين حسن باسطة وعقو سؤال ويننا قواش اسماعيل سؤال ويننا وبرلات سؤال ويننا عبد بالله وعقو سؤال ويننا قواش نبض اسماعيل وحن سؤال ويننا أو تاجر سناي مدحوينها جوبو أحمد محمد إسلام وحن كسر دوينا قوشة مدحوينا كفيجين كجوبلان عبد الله الشيخ إسماعيل فرتاك وحن سر دوينا إذا ما قلب كسر جوبلان ما كسر دوينا قوشة وحن سر دوينا أو كسر دوينا إذا ما لا برا على شر برهير عليه وعبو صار رجع إسماعيل كتر وقش النوافذ سنت وعاد سنة يصير هذا على السماينا يا مدحوينها وقش هذه وافذ سنت رئيس البرلمان وقش هذه رئيس الوزراء وقش هذه وافذ سنت وحوي والله النقطة واحد عاي وحي إلا النقطة ولا شيء أيام نقطة باقينا ما أنت قرأنا نقطة أنا بويل قبل ير على أو أتيسن كريم وريل قرحة دين استاجنا من نجاق عشان جوابتي نهربنا إلهي كعبسة أمد وابا بعض الصومالي هم باك حرتي إلهي كرو نبض هذا إسرائيل ماذا هوينا أنك صوماليات فضان قبش عن فضن الدقدقني كوي وفضان رئيس وزراء دقدقني كوي وفضان رئيس وزراء جواري نينكوي وفضان خضر محمود حريت Somali Channel Kismaayo. munaasabad balaaran oo ay ka soo qayb galeen maamulada degmooyinka Luuq iyo Doolow ee gobolka Gedo laguna xusayay
maalinta cuntada adduunka oo ay iyada soo qaban qaabisay hay-adda FAO iyo hay-adda World Food Program ayaa waxaa lagu qabtay degmada Doolow Soomaaliya. Maxamed Qani Xuseen Kuusow ayaa Doolow Soomaaliya warkaasi oo faahfaahsan nooga soo diray. xafladan balaaran ee lagu xuseeyay 16 Oktoobar oo loo asteeyay maalinta cunnada adduunka ayaa waxaa halgudhig u ahaa cuna kalluunka taasoo ay soo qaban qaabiyeen hay'adaha FAO iyo WFP. maamulada degmooyinka Doolow iyo Luuq ayaa si wadajir ah uga soo qayb galay maanta munaasabadan ayagoo halkaasina bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka soo qayb galeen. mas'uuliyiin u hadlay hay'adaha FAO iyo WFP ayaa sheegay in muhiimad gaar ah ay leedahay in kheyraadka ku jira gobolkan bulshadu ay la soo baxaan kaasi ugu horeeya kalluunka ay sheegeen in uu sida ugu fudud lagu heli karo sidoo kalena ay ka caawin doonaan in la isticmaalo kalluunkan. And all fishermen and fisherwomen who also have made this day very lively and very memorable. My colleagues in the UN agencies, my colleagues in humanitarian agencies, both national and... All of us are here and on UN agency and everyone, and hopefully that our joint activity today will bring the change. gudoomiyaha degmada Luuq Axmed Buule Maxamed ayaa halkaasi hadal ka jeediyay asagoo sheegay in ay bulshada deegaanku ka maqan tahay inay isticmaalaan kalluunka asagoo sheegay inuu yahay asagu qofka ugu horeeya ee maanta isticmaalaya kalluunka maadaama uusan horey u isticmaali jirin. waxa uu bulshada ugu baaqay Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan Gedo inay u istaagaan sidii kheyraadka ku jira dalkooda ay la soo bixi lahaayeen. Cabdirashiid Xasan Cabdinuur gudoomiyaha degmada Doolow Soomaaliya ayaa sanadkiisa sheegay in ay faa'iidooyin gaar ah ku jiro cunitaanka kalluunka asagoo sheegay in asagu uu shakhsiyan isticmaalo kalluunka. maanta waa maalin aad u qiimo badan waa maalintii cuntada adduunka waa maalin in la xuso u baahan aad iyo aadna u weyn weeye waana soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsannahay inaan ka qayb galno saarka munaasabadan aad baan ugu faraxsannahay 100% barnaamij aad u qiimo badan oo u weyn oo dhan kasta ka weyn weeye waana soo dhaweynaynaa dadkii soo abaabulay mas-uuliyiintii soo abaabushay hay-adihii samafalka injooyadii dhalinyaradii ruwaayadda dhigayso aad u qiimo badnayd dhammaan aad baan idinkugu mahadcelinahay. wuxuu yidhi dhammaantay waa inaan kalluun cunaawi anigu hadda laftay kalluunan cuno maantaa ugu horreyn doonta diila runtii waxaan aaminsanaa dhaqanka hadda ninkaan uu ka hadlayay ninka la yidhaahdo Kuuso waxaa laga yaabaa hadda inaad nin kula yaabtaan weligii aniga kalluun weli laga soo bixiyo ma cunin iyo dadku runtii waa iga maqnay marka maanta bilaabaya aad u mahadsan waa maalin sharaf leh maanta munaasabadan aan iskugu nimid oo ah maalinkii cuntada adduunka oo haddana noo suurto gashay inaan isku baraarujino in kalluun la isticmaalo. kalluunku waxaan dhihi karnaa waa shay in badan ummadda Soomaaliyeed ka maqanaa sida loo isticmaalo qaybo waliba qaasatan gobolka ku yaraa waa jira gobolka Soomaaliya aad looga isticmaalo waa meelaha badaha leh. gabagabadii munaasabada ayaa gudoomiyaasha Doolow iyo Luuq waxa ay halkaasi ku bilaabeen cunno la keenay oo ahayd malay si wanaagsan loo soo sameeyay waxaana halkaasi ku bilaabeen cunitaankiisa ayadoo sidoo kale daahfuray gudoomiyaha degmada Luuq oo ahaa shakhsiga ugu horeeyay ee maanta dhadhamiya cunnadaasi. hase ahaatee bulshada ku dhaqan gobolkan Gedo ayaa la dhihi karaa waxaa jira kheyraad fara badan oo aysan ka faa'iideysanin kaasi oo ah mid Ilaahay ku banaysay ummadda ku dhaqan gobolkan Gedo waxaana xilligan hay'aduhu ay bilaabeen inay dardar geliyaan in bulshada ay uga faa'iideeyaan kheyraadka ku jira deegaanka. Maxamed Qani Xuseen Kuusow TV-ga caalamiga ee Somali Channel degmada Doolow Soomaaliya. iyada oo guud ahaanba si aad ah looga dabaaldegayo ciidda muslimka ee Ciidul Adha ayaa waxaa ka jira duruufo adag oo haysta dad ka mid ah dadka degan magaalada Hargeysa. duruufo dhaqaale xumo oo iyagu u suura gelin waayay inay ka mid noqdaan malaayiinta muslimka ah ee adduunka ciidda Carafo uga dabaaldegaya ayaa dadkaasi haysata waxaana ay farxadaasi
gaar ahaan u taabatay caruur halkaas iyagu ku nool. Cumar Serbiya oo ah wariyaha magaalada Hargeysa nooga soo hadla ayaa faahfaahinta warkaasi Hargeysa nooga soo diray. waqtigu waa hal maalin uun ka hor maalinta ciidda, waana xilli ay dadka Hargeysa ku nool u diyaar garoobayaan ciidka. caruurtuna waa dadka ugu badan ee farxadda ciidda ka qayb qaata, iyaga oo maalmahaasi loo iibiyo waxyaabo cusub oo dhar iyo agab ciyaareed ba iskugu jira. balse caruurtu nasiib uma wada laha inay ciidka kaga qayb qaataan waxyaabahaasi cusub ee loo iibiyey, iyadoo taasina ku xidhan tahay hadba ahaynta waalidkoodu intay gaadhsiisan tahay. Yaasiin Cabdiqani oo ah 13 jir ku nool Hargeysa, waqti aan ku booqanay guriga uu ku nool yahay waxa uu helinayay dharkii ciidka oo markaasi laabta ku haystay, waxaanu si farxad ku dheehan tahay nooga warbixiyay bal isaga iyo ciidka ku soo fooda leh. xagga waxaan ku haystaa dharkii ciidka oo la soo iibiyay. waxaan ka salaamayaa dadka aan isgaranaynaa, asxaabtayda, qaraabadayda, waalidkayga. aad iyo aad baan salaamay rabada ciidan aad baan ugu faraxsanay, si aad iyo aad ugu faraxsanay. waxaan doonayaa inaan ciidda tago dheelada aan ka soo sharaabna ka soo cabo. haddii uu Yaasiin sidaas ciidka ugu diyaar garoobay, waxaa jira caruur badan oo faciis ah kuwaasi oo aan iyagu waqtigu ku saacidin inay xidhaan. Amiin waa 9 jir ka mid ah caruur badan oo ku nool xiro barakacyaal ay degan yihiin oo ku taala koonfurta Hargeysa. isaga iyo 6 caruur oo ay walaal yihiin. ciidkan waxay ku qaadanayaan guri buul ah oo ay la degan yihiin waalidkood, iyagoo aan u suurtagelin inay helaan dhar, taasi oo waalidkooduna awoodi waayeen. Amiin ayaa isna sidan yiri isaga oo tusaale u soo qaatay ilmo kale oo isagu u diyaar garoobay ciidda. waxaan doonayaa waxa uu haysto oo kale in aan jecelahay leeyiyo biibilo kamid ah oo baaskoolad yar iyo waxa ciyalku haystaan kamid ah induni ya waxa ciyalku waa iska ciyaal. Sacdaa Maxamed waa hooyada dhashay Amiin, waxay halkan ku dhaqaysaa xogaa dhar ah oo ay sheegtay inay ku samirsiinayso caruurteeda kadib markii ay ka codsadeen inay dhar u iibiso, taasi oo ka baxsan ahaynteeda dhaqaale. de walaal wixii maxay ahayd baahi baa iska jirta, maxay ahayd waanan haynba waan iibinayna hadaan hayne ya maxay ahayd baahidu waa halkaan keentay markaan igu suganahay maxay ahayd halka gurigeygii waxay walba baahi waa halkaan keentay marka baahilaan waxaan loo iibin waayay waxa weeyaan waxaan jaabkayga umban dan weeye mariyaan la meeray waa mariyoogii hore laga bixiyay. Sacda oo aan weydiiyay haddii uu waqtigu sidan uga duwanaan lahaa, bal qorshaha caruurteeda uga meel yaali lahaa waqtiyada ciidda, iyadoo hooyadu tahay qof uu Ilaahay naxariis ugu abuuray ubadkeeda, ayaa waxay sheegtay Sacda inay damqaan rabitaanka caruurteeda kaga imanaya ee xilliyada ciidda, taasi oo ku saabsan inay qayrkood kala qayb galaan farxadda ciidda. waxaan u iibin lahaa waxaan qori waxa qayrkood ka yidaan waxa wanaagsan ya wax walba maxay ahayd waxay xidhan karayeen wax walba waxay doonayeen maxay ahayd laakiin waxa ciilay jaabkii ya maxay qurbo saasi ku tawqiinayaan saasi wax walba keenda iidba soo dhow maxay keen saasi madax kaga qaadaya maxaad sameyn hadana waxay qasab waxaad hayso waxba kalama hadhis, laakiin waxaadan haynin mayaad haysaaba sino wareeyino xinee bay leeyihiin imika waxaan qori imika wala soo dhaqadaa bay leeyihiin ama meelay gebay leeyihiin hadana jeebkayga kama geen karo. dadka ku dhaqan Hargeysa oo dabaqad ahaan kala duwan ayaa kuwa badan oo kamid noloshoodu aad u hooseysa, inta badanna fursado uma helaan in xaaladooda dhabta bulshada inteeda kale loo soo bandhigo, taasi oo dhici karta inay horseedi karto gacan mucaawin oo loo geysto. Cumar Serbiya, Somali Channel, Hargeysa. wasiir ku-xigeenka qorsheynta Somaliland ayaa waxa uu ka waramay halkii ay ku dambeysay waanwaantii shaqaaqada dhimashada sababtay ee ka dhacday degmada Xariirad ee gobolkaasi Awdal. Cabdi Fataax Axmed ayaa boorama faahfaahinta warkaasi guud ahaan nooga soo diray.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland mudane Xasan Daahir Dhimbiil oo socdaal howleed ku jooga magaalada Boorame ee xarunta gobolka Nowdal kana mid ahaa wafdigii wasiirada ay xukuumadda Somaliland u dirtay waanwaanta beelaha walaalaha ee dhawaan shaqaaqada dhimashada sababtay ku dhaxmartay deegaanka xariirada ee gobolka Nowdal ayaa maanta waxa uu ka warbixiyay halkii ay ku dambeysay waanwaantii ay ka dhaxwadeen beelahaasi degmada xariirada ee gobolka Nowdal. waxaan u tagnay dadka oo aan si salaamin dadka oo aan isdhexgelin dadka oo runtii aad iyo aad u kala fogaaday muddo badana kala maqnaa ilaa iyo dhowr iyo siddeetankii waxaan alxamdulilah ilaahay noo suurtageliyey dadaal badan kadib inaan labadii beelood gacmaha isku saaro wadahadal loo furo nin walba wuxuu ka cabanaya inuu sheego waxaana filayaa in 5 cisho gudahood ama 5 cisho markay dhammaato baan guurtidii iyo labadii beelood ay wax ka dhaxeeyeen ayaa geed mar labaad ku kulmi doonaan xariirad si loo sii ama qaado ballanihii loo kala qaado waxyaabihii lagu kala xukumay loo kala qaado. sidoo kale wasiirku waxa uu ka hadlay howlaha horumarineed ee dhanka wadooyinka ay xukuumadda Somaliland muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku talaabsatay waxaana hadaladiisa ka mid ahaa waxaan rabaa Somaliland markaa waxay tahay xagga saartay wadadii horumarka maadaama ay maanta mashquul ku tahay sidii Somaliland oo dhan la isku xiri lahaa wadooyinka hadday tahay Salaxley hadday tahay Bilagubadle hadday tahay Laxargaabo hadday tahay Boorame la dila oo kan Boorame la hagaajinayo waliba iyadana dhammaystiran tahay Boorame la dila iyo kala beernaa dib baa loo hagaajinayo hay'adaha xarunta qaranka kadib inta markaa Facebook dhamayno waxaan amsahay inaanu dhaqaaqi doono ilaa xeeb ilaa yeesir insha Allah in la dhameystiro doono oo qorshaha dawladda ay tahay inta cimriga gaaro fishankan ku jirnaa lisana wataas. Cabdi Fataax Ahmed, Somali Channel, magaalada Boorama. guddiga culimada oo iyagu la baxay wanaag farista iyo xumaan reebista ayaa waxa ay maalintii labaad ka wadaan qaybin hilib nool iyo xoolihii udxiyada loo gowracay magaalada Garowe oo ay siinayaan dadka danyarta ah ee aan iyagu awoodin inay udxiyaha qalaan ama iska bixiyaan. Samiir Cabdiraxmaan Cabdille ayaa Garowe faafahinta warkaasi guud ahaan nooga soo dirtay. qaybinta xoolaha ulxiyada oo ay maalintii labaad ka wado jamciyadu qaar ka mid ah kaamamka barakacayaasha iyo xaafadaha Garowe ayaa waxa ay maanta gaarsiiyeen kaamka Ajuuraan oo ka mid ah kaamamka barakacayaasha ee ku yaala Garowe. Maxamed Xamare oo ka tirsan jamciyada wanaag farida iyo xumaan reebida oo ay hay'adda Haro u soo wakiilatay inay ka qaybiyaan xoolahan Garowe ayaa waxa uu ka waramayaa tirada neefafka ee maanta ay ugu talagaleen inay ka qaybiyaan magaalada. insha Allah ta'ala saaka waxaan qaybinayn adaaxi loogu talagalay dadka ku nool magaalada Garowe xoolaha aan qaybinayno waa 32 neef weeyaan oo loogu talagalay in lagu kala qaybiyo xarumaha barakacayaasha hadda dhex taaganahay kaamkan ah kaam Ajuuraan iyo magaalada qaybo kamid ah oo loogu talagalay in laga qaybiyo saaka oo ay soo dhiibtay hay'adda alboorkeeda u jeedaan loo Haro oo degan hay'ad Soomaaliya oo samafalaha oo ka shaqeysa arrimaha samafalka iyo daryeelka ummadda Soomaaliyeed iyo dadka Islaamka ah iyadoo noogu soo wakiilatay inaan barnaamijkan maanta uga fulino magaalada Garowe oo lagu talagalay adaaxidan bisha 10 Dhulxijja oo shalay la ciiday maalintii labaad ay tahay ayaan insha Allah ta'ala waxaan rabnaa inaanu barnaamijka ka fulino magaalada Garowe insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa in cid allaala ciddii ku baxsatay ama laga soo aruuriyo kharashkan oo dadka Soomaaliyeed ku noqon dalka Mareykanka in Allah subhanahu wa ta'ala uu bedelo miisaan xasanaadka u saaro meesha ay ka soo bixiyeen qaar ka mid ah horjoogayaasha kaamka Ajuuraan oo iyaguna ka waramayay dareenkooda ayaa waxa ay soo dhaweeyeen xoolaha maanta la soo gaarsiiyay. waxa weeyaan oo Warsan Ali Ibrahim oo ka mid ah guddiga kaam Ajuuraan waxaanu u mahadcelinaynaa dadka muslimka walaalaha oo noo keenay xoolaha ciida hay'adda Haro waa u mahadcelinaynaa ilaahay baa mahad walaalahooda halkaas jooga oo qaxootiga dadka sadaqaystay xoolaha iyagana ajar iyo xasanaad Allah ka siiyo. Samiir Cabdiraxmaan Cabdille, telefishinka caalamiga ee Somali Channel, Garowe. mas-uuliyiinta dawladda hoose ee gobolka Awdal magaalada Boorame ayaa waxa ay ka hadleen ay dad shacab ah ku sumeeyeen gudaha magaaladaasi Boorama. Cabdi Fataax Ahmed
iyo mar kale. duqa degmadan Boorama Saleebaan Xasan Xadi ayaa maanta waxa uu dareen caro leh ka muujiyay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadda Sheekh Cali Jawhar ee magaaladan Boorama kuwaasoo gacmahooda ku sumeeyay eeyaha ku nool xaafadaasi wuxuuna duqa degmadan Boorama Saleebaan Xasan Xadi ku tilmaamay arintaasi mid sharciga baalmarsan isla markaana aysan ahayn inay dadkaasi shacabka ay gacmahooda ku sumeeyaan eeyahaasi anagu maanan ogaan horta runtii waxayna ahayd inaan ka warqabno anagu lana soo ogeysiyo xogan ka helno kadibna aan talaabo ka qaadno marka ayadu sidaad ogtiin bade waa sanadkiiba hal mar baa la sumeeyaa dad dhibsaday ama ay dhibaatooyin u geysteen baa sumeeyey iyaga oo aan markaa ka fiirsan shuruucdii iyo nidaamkii u degsanaa taasina markaa waxay keentay ayadii inay suntii cunaan kadibna ay kala yaacaan laakiin imika waanu soo ururnay shaqaalii dowladda oo soo dhammaan dareerinay gawaadhidii oo dhan way daba socdaan marka meel kastoo lagu gaadho waa lasoo qabanaya waana la ururinayaa inankii ganacsadaya hawsha ku dhaqaaqeen waanu yeedhnay waana ka wada hadalnay waana laga wada howlgalay sidoo kale dadka ku dhaqan xaafadaasi Sheekh Cali Jawhar ee magaaladan Boorama ayaa iyaguna waxa ay sababeeyeen waxa ku kalifay inay gacmahooda ku sumeeyaan eeyaha ku nool xaafadaasi halka nagu bartaan maxaan ku dhalan anigu waxaan u cursaday xitaa caruurtii maxaan ku dhaday haynaga cuni gaareen bar maxaan ku dhaday iska sumeynay ay dawladina noo soo dhaqaaqi weyday sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmadan Boorama ayaa iyaguna fikir iskhilaafsan ka bixiyay howlgalkaasi ay shacabka ku dhaqan xaafadda Sheekh Cali Jawhar ee magaaladan Boorama ku sumeeyeen eeyahaasi waxayna qaarkood taageereen howlgalkaasi halka qaarka kalena ay ka soo horjeesteen dhibaato badan bay xaafadda ku hayeen cabasho badan baa nooga timiday golo deegaan ahaan iyo maamul ahaanba ayada ay sumeeyeena macnaa iyaga ayaa is ixtiraamay iyaga ayaana macnaa hawshaa fuliyey taasoo ah wax qabad la'aan annagu aan ka gaabinay dhinaca iyagu dowladhaas ahaan iyo maamul ahaanba in annagu ayada aan wax ka qabanno runtii waa fal xun oo waxashnimo waxaan leeyahay falkaasoo kale shacbiga ka digtoonaadaan qof shacbiyana maba haba sun inay gacantiisa soo gasho waa wax aan loo dul qaadan karin waa wax aan la aqbali karin hay'adaha jira nidaam dawliyeenu leenahay ma nihin waddan fawda waddan nidaam iyo kala dambayn iyo dawladnimo labaynu nahay Cabdifataax Axmed Somali Channel magaalada Boorama waddanka Koonfurta Afrika oo kamid ah wadamada ay ummadda Soomaaliyeed u qaxday hadiyo jeeralan dhibaato badan ay kala kulmaan ayaa waxaa looga ciiday si wanaagsan iyadoo salaadii ciidana si wanaagsan ay ugu tukadeen iyada oo dadka halkaas isugu hambalyeynayeen ciid wanaagsan ama ciid mubaarak maxamed xasan ibraahim madka ayaa Koonfurta Afrika wararka ka dhaca noogu diyaara oo noo soo diray walba kumanaan muslimiin ayaa maanta isugu soo baxay fagaaro ku yaala xaafadda Mayfa ee ku taala magaalada tani Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika ayagoo si wada jir ah ugu ogay salaada Ciidul Adha dadkan ayaa waxa laga dheehan karay wejiyadooda farxad aad u sareysa waxaana sidoo kale muuqanayay waalidiin caruurtooda gacmaha ku haysta oo soo xirtay dhar aad u qurux badan kana qayb qaadanayay damaashaadka ciida fagaaraha salaada lagu oogayay ayaa waxa laga soo jeediyay khudbado wacdi ah oo u badnaa dardaaran diini ah kuwa ay soo jeediyeen qaar ka mid ah culimada ku nool dalkani Koonfur Afrika markii salaada ciid la soo oogay kadib ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mid ah dadweynihii goobta ku soo tukaday salaada ciida inkastoo maanta inta badan dunida islaamka u tahay maalintii labaad ee Ciidul Adha ayaa haddana dalkani Koonfur Afrika waxay u noqonaysaa maalintii koowaad ee laga ciido iyadoo ay xusid mudan tahay in boqolaal dhalinyaro Soomaali ah kuwa ay duruufta u saamixin inay soo tukadaan salaada ciida sabab la xiriira ay ku sugan yihiin tuulooyin ka fog meeshaan waxaan ka salaamayaa ummadda muslimka meel kasta ay joogto gaar ahaan waxaan salaamayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay adduunka joogaan ciid wanaagsan baan leenahay magacaygu ayaan Axmed Maxamuud oo ku nool dalka South Africa qaasatan caasimadda Johannesburg waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed oo ummadda muslimka guud ahaan qaasatan ummadda Soomaaliyeed waxaan salaamayaa aabay Axmed Maxamuud oo ku nool dalka Sacuudi Carabiga qaasatan Jidda waxaan salaamayaa walaalahay oo ku nool dalka Soomaaliya waxaan salaamayaa walaalkay oo jooga Artisababa waxaan salaamayaa habartay oo jooga dalka Ingiriiska dhammaan waxaan salaamayaa inta magacayga iyo muuqayga taqaano maanta waa maalin farxad leh noo ku hadlayna magaca Albayaan ee soo qaban qaabiyay ciidan waxaanu salaamaynaa muslimiinta oo dhan waxaan Ilaahay uga baryaynaa subhanahu wa ta'ala dadka la xoreynaya naarta laga xoreynaya jannadiisana la geynaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu inugu daro inta kadib waxaanu salaamaynaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo ummadda muslimiinta ah ciid wanaagsan
عيد مبارك ولا لا magacayga waxaa la yiraahdaa Aamina Haybaxayd waxaan joogaa wadanka South Africa anigoo ku hadlaya magaca majliska Albayaan marka hore meeshan waxaan ka salaamayaa hooyaday macaanto oo ku nool wadanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Kismaayo maanta wallahi jawiga aad ayuu ku qodnaa dadkuna guud ahaan dhammaan ajnabi iyo Soomaaliduba way iidiyeen halkan waxaan kaloo ka salaamayaa walaaladay oo kala duwan oo Saleebaan Haybaxayd Canab Haybaxayd Faadimo Haybaxayd waxaan kaloo halkan ka salaamayaa caruurtaydii oo ku nool magaalada Kismaayo iyo aabahood oo la yiraahdo Maxamuud Sheekh Suleymaan waxaan kaloo halkan salaan uga dirayaa maamulka iyo madaxda madrasada Albayaan taqabbal Allahu minna wa minkum ma'al faa'izin ma'al aidin waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta caalamka meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan kaloo salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid saciid wa taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal Najmo Maxamed Cabdille waxaan salaamayaa muslimiinta iidayso ciid wanaagsan ciid mubaarak waxaan salaamayaa walaashii Amaan oo ku nool Nairobi walaalkay Axmed oo ku nool Nairobi aabay oo ku nool Xamar waxaan leeyahay dadka Soomaalida assalaamu calaykum wa rahmatullah ciid wanaagsan kull caam wa antum bil khair magacayga waxaan la Maxamed waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leeyahay farxad ku ciida mubaarak kullu caam wa antum bi khairin waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kasta oo adduunka ay kala joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo iyadana adduunka dhaafiisa ay kala joogaan waxaan kaloo salaamayaa family-gayga oo dhan meel walba ay joogaan adduunka iyo inta muuqaalkayga iyo taqaano waxaan kaloo salaamayaa habaryartay qaaliga Shukri Abditon Maxamed joogto Sweden aad baa u salaamayaa iyo qof kale waxaan salaamayaa igu weyn aad u jeclahay ayadana joogto Sweden aad baa u salaamayaa qofkaas oo isgaranaya ciid wanaagsan oo wacan magacaaga yaad jeceshahay halka inaad ka salaanto bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Liibaan Shaacali waxaan salaamayaa caalamul islaam adduunka meel kasta ay ka joogaan ummadda islaamka khaasatan dadka Soomaaliyeed waxaan kaloo salaamayaa carruurtayda hooyaday iyo dhammaan asxaabta inta maqalkayga iyo muuqayga taqaan si kastaba ha ahaatee maanta ayaa si guud ahaan loogu ciiday dalkani Koonfur Afrika Maxamed Xasan Ibrahim Madka TV-ga caalamiga ee Somali Channel Koonfur Afrika hay-adda Save the Children ayaa iyaduna waxa ay 4 degmo oo ka tirsan gobolka Saaxil Berbera ay ka dhiseen dugsiyo waxbarasho oo dugsiyadaasi loogu talagalay inay wax ku bartaan ardayda gobolkaas iyo magaalada Berbera iyo soonaheeda ku nool maaliyadii ama dhaqaalihii ku baxay dhismahaas ayaa waxaa bixiyay midowga Yurub Maxamed Cabdullaahi soo fariistay ayaa faafahinta warkaasi noo haya hay'adda Save the Children oo ah hay'adda xanaaninta carruurta ayaa si ballaaran uga qayb qaadata mashruuca lagu horumarinayo waxbarashada Soomaaliland waxaana fulisaa mashaariic ay midowga Yurub ugu soo deeqaan kor u qaadida waxbarashada Soomaaliland iyadoo ay dugsiyo tiro badan ka sameysay deegaamada bariga iyo galbeedka gobolka Saaxil iyadoo hay'addu kaashanaysa wasaaradda waxbarashada Soomaaliland waxaana labadii maalmood ee u dambeeyay mas'uuliyiinta degmada Berbera gobolka Saaxil ay ku mashquulsanaayeen furidda ama xariga jaridda dugsiyo tiro badan oo ay dhismayaashooda fulisay hay'adda Save the Children dugsiyadaasi oo ku kala yaala 4 degmo oo ka tirsan gobolka Saaxil kuwaas oo kala ah degmada Berbera oo dugsiga sare ee Cabdisalaan kalaasyo cusub xariga laga jaray halka dhismayaal kalena loo dhagax dhigay degmada Sheekh ayaa iyana waxa dhismayaal cusub xariga looga jaray dugsiga sare ee Shiragaab iyo tuulada Dawdama sidoo kale waxa deegaanka suuqsaday isagana laga dhagax dhigay dhisme cusub oo lagu kordhin doono dugsiga sare ee deegaankaasi ku yaala dhinaca degmooyinka Mandheere iyo Go'da Weyn ayaa iyagana waxa xariga laga jaray 2 dugsi oo ku kala yaala tuulada Ragaad Weyn iyo Go'da Weyn halka tuulada La Faruugna dhismayaal cusub oo dugsiyadooda lagu kordhin doono loo dhagax dhigay guud ahaan dugsiyada xariga laga jaray iyo kuwa la dhagax dhigayba waxa maaliyadda ku baxaysa soo bixiyay midowga Yurub halka ay hay'adda Save the Children fulinayso iyadoo oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland Axmed Abakar oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda Save the Children isla markaana ah madaxa mashruuca horumarinta cilmiga ayaa isagu sharaxaad ka bixiyay dugsiyada xariga laga jarayo iyo waxyaabaha looga baahan yahay dadyowga deegaamadooda laga dhisay
aad iyo aad waxaan runtii ugu mahadnaqaynaa markaa midowda Yurub oo barnaamijkan fankiisa ama maalgelintiisa bixiyay waxaan kaloo markaa mahadnaqaynaa wasaaradda runtii suurtagelisay markaa in dugsigana wax lagu kordhiyo fara badan oo kala mashruucan caawinayna ay markaa priority koowaad siiso wasaaradda waxbarashada waxaan si gaar ah markaa hadda reer saaxilna uga amaanaynaa 25 dugsi waxbarasho xagga dugsiyada hoose ah oo mashruucan uu dhisayo cusbaa in 9 ka mid ah laga dhigay markaa gobolka saaxil la siiyey mahad gaar ah wasaaradda ugu jeedinayna waxaan kaloo markaa mahad gaar u jeedinayna maamulka heer degmo iyo heer gobol ee dhinaca waxbarashada iyo maamulada deegaanka oo markasta ka qayb qaata markaa maantana aad aragtaan faraha badan runtii howlahoodii qaranka ay meel soo dhigeen waxbarashada runtii dhiirigelinaya oo guul bay runtii inoo tahay dadkuna waxay ku horumaraan runtii waxbarasho ku horumaraan gobolka saaxil haddeen doonayno gobolada kala dhaafo ama dhalinyarada iyo ardayda reer Soomaaliland haddeen doonayno inay la tartamaan ardayda caalamka waa inaan waxbarashada xoogga saarnaa waxbarashadana maanta waa la daadejinaya meel kasta oo la gaarsiinaya runtii midowga Yurub mahad gaar ah buu leeyahay iskuulkan dugsiga sareen joogna ujeedada loo sameeyay waxa weeyaan waxbarashada tayada kor loo qaado mashruuca hore loo sheegay mashruuca horumarinta cilmiga waxa maalgeliyay midowga Yurub wuxuu bilaabmay sanadkii hore bilaabmay bishii 12aad 3 sano soconaya 3 sano waxa lagu talagalay wadanka in laga dhiso 25 dugsi hoose cusub 7 dugsi sare cusub 60 class oo baram lagu kordhinayo dugsiyada sare iyo 50 class oo lagu kordhinayo dugsiyada sare iyo 5 science laboratories ama lagu barto science-ka iyo 5 kale oo computer labs ah oo lagu baranayo computerada iyo intaas oo iskuulo tiro badan runtii maamulada gobolka saaxil iyo ka degmada Berbera ayaa iyagu dardaaran xoogan oo ay siiyeen dadyowga deegaamada ku dhaqan kula dardaarmay inay caruurahooda keenaan dugsiyada waqtiyada ku habboon maxamed cabdilaahi soo fadhiistay Somali Channel magaalada Berbera ganacsadayaal iyaguna u dhashay dalalka Malaysia iyo Singapore ayaa deeq udxiye ah waxa ay u qaybiyeen qaar ka mid ah barakacayaasha ama dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Burco maxamed Cawad maxamed ayaa noo faahfaahinaya hay'adda islaamiga ee wada oo kaashanaysa hay'adaha kale ee Al-Khair Muslim Charity Global Aid Bangla TV iyo Nuur al-Islam ayaa u qaybisay in ka badan 800 oo qof oo danyar ah deeq udxiye oo isugu jirtay ari geel iyo lo waxaana xarumaha maantani deeqahan udxiyada la gaarsiiyay kamid ah xarunta agoomaha ee wado suuqa agoomaha iyo dadka danyarta ay ku ganacsadaan ee barwaaqo kaamka barakacayaasha 15 May ee magaalada Burco cisbitaalka TB-da xabsiga dhexe xarunta agoomaha ee hablaha ee magaalada Burco iyo waliba dadka barakacayaasha ee ku dhaqan xaafadda Manhal ee magaalada Burco waxaana deeqdan udxiyada ay ahayd mid si habsami leh guud ahaanba loo gaarsiiyay dadkaasi waxaana ugu horeynba qaybinta deeqdan udxiyada ka hadlay Axmed Cabdilaahi Cawaale oo kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ee hay'adda Iwada kaasi oo sheegay in deeqdan ay tahay mid sanad walba ay bixiyaan waxay deeqdan udxiyada waxay deeqdan boqol oo qoys ayaan u qaybinay udxiyadan waana dadka danyarta ku nool magaalada Burco waxa sidoo kale deeqdan udxiyada ah waa mid sanad walba la qabto hatta kale la qabto oo si joogto ah ururka Iwada uu fuliyo waxaan ugu talagalay dadka danyarta ah ayaan awoodiyagu inay maalinta yawmal faraxa inay udxiyeystaan si aan uga farxino marka ururkan Iwada wuxuu qabtaa shaqooyin fara badan ayuu u hayaa gobolkan Togdheer gaar ahaan gobolka Togdheer sidaa daraadeed waxay qayb ka mid tahay mashaariicda ururkan ka fuliyo gobolada Togdheer ee gobolada bariga geestoodana qaar ka mid ah dadkii deeqdan la gaarsiiyay ayaa mahadcelin ballaaran u soo jeediyay hay'adda Iwada iyo waliba hay'adaha kale ee iska kaashaday sidii ay deeqdan udxiyada u soo gaarsiin lahaayeen ugu dambeyntiina maaha markii ugu horeysay ee hay'addan Iwada deeq noocan kale ay ka fuliso gudaha magaalada Burco balse waxayna sidoo kale ay sanadkan deeq noocan oo kale ay ka fulinaysaa gobolada Sanaag iyo Saaxil dhinaca kalena ururka Qurbaan oo ah urur ay ku midaysan yihiin ganacsato u dhalatay dalalka Malaysia iyo Singapore ayaa iyaguna maanta deeq isugu jirta ari iyo geel oo udxiye ah u qaybiyay kaamamka barakacayaasha ee magaalada Burco waxaana deeqdan udxiyada ay dhameen 205 neef oo ari ah iyo waliba 10 geel ah kuwaasi oo guud ahaanba loo qaybiyay saddexda kaame kala Koosar Cali Xuseen iyo waliba Aadan Saleebaan deeqdan oo ahayd mid ballaaran ayaa si weyn uga qayb qaateen qaybinteeda qaar ka tirsan xildhibaanada
xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco iyo waliba Khaliif Maxamed Warsame Khaliif Xinwaal waxaana ugu horeynba qaybinta deeqdan iyo waliba ujeedadeedaba ka hadlay Khaliif Maxamed Warsame kaasi oo mahadcelin ballaaran u soo jeediyay ganacsatadani u dhalatay dalalka Malaysia iyo Singapore aad baan u soo dhaweynay labada hay'adood ee isugu jira Malaysia iyo Singapore waxay ugu talagaleen inay sadaqad u baxsadaan maalinta ciidda dadka qaxootiga ku nool xaafado kala gedisan oo magaalada Burco ka mid ah xaafadan maanta ay joogto xaafadii Aadan Saleebaan markii hore waxay sadaqooyin ku bixi jireen runtii meelaha kala gedisan markii aan la kulannay waxaan u yeedhiyay jireen meelo dhinacoodana xubno ku hadlayay afka ganacsatadani u dhalatay Malaysia iyo Singapore ayaa iyaguna sheegay inay deeqdani ugu talagaleen sidii ay ugu kaalmeyn lahaayeen ugana farxin lahaayeen dadka barakacayaasha ee ku dhaqan kaamamkaasi xildhibaan Khadar Siciid iyo waliba xildhibaan Gaboobo oo iyaguna ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco ayaa soo dhaweeyay deeqdani iyagoo sheegay in loo baahan yahay in la sii laabo deeqaha la gaarsiinayo dadka danyarta ah geestoodana gudoomiyayaasha xaafadahani Koosar Aadan Saleebaan iyo Cali Xuseen ayaa mahadcelin ballaaran u soo jeediyay ganacsatadani u qaybisay deeqda udxiyada waa Maxamed Caawud Maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Channel Burco tartan ciyaareedkii ay bariyahan kooxaha heerka koowaad ee magaalada Kismaayo ku qabanayeen halkaas ayaa la soo gabagabeeyay waxaa koobka horyaalka ah ee kooxaha heerka koowaad ee magaalada Kismaayo iyadoo ku guuleysatay kooxda isku filan oo ka tirsan kooxaha heerka koowaad mar kale Qadar Maxamuud Xareed ayaa noo haya faahfaahinta warkaas garoonka kubadda cagta ee Waamo ee magaalada Kismaayo waxaa galabta ka dhacday ciyaar finaal ah oo xiiso badan taasoo u dhaxaysay kooxaha isku filan iyo Kasiima oo ka wada tirsan kooxaha heerka koowaad ee magaalada Kismaayo kuwaas oo ku soo guuleystay inay u soo baxaan ciyaarta kama dambaysta ah ee tartan ciyaareedkii kooxaha heerka koowaad ee Kismaayo oo soo socday muddo dhan bil iyo bar ciyaartan oo ahayd mid ay dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo ay aad u wada sugayeen ayaa waxaa daawashadeeda ka soo qayb galay dad aad u fara badan waxaana sidoo kale goobjoog ahaa xubno ka tirsan guddiga isboortiga ee gobolka Jubbada Hoose labada kooxood ayaa soo bandhigay ciyaar aad u wanaagsan taasoo taageerayaasha labada dhinac ay aad ula dhaceen waxaana qaybtii hore ee ciyaarta gool dhashatay kooxda isku filan halka qaybta dambe ee ciyaarta ay kooxda isku filan heleen goolkoodii labaad taasoo niyad jabisay ciyaartoydii iyo taageerayaashii kooxda Kasiima oo iyagu dadaal xoogan ugu jiray sidii ay u hanan lahaayeen koobka kooxaha heerka koowaad ee magaalada Kismaayo waxaana halkaasi lagu soo gabagabeeyay tartankii kooxaha heerka koowaad ee magaalada Kismaayo waxaana koobkii muddada bisha ka badan soo socday qaadatay kooxda isku filan oo ku qaaday 2-0 oo ay uga adkaatay kooxda Kasiima waxaana kooxda isku filan koobkii ay ku guuleysatay guddoonsiiyay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha kubadda cagta ee gobolka Jubbada Hoose Yaxya Xasan Xaaji iyo Cabdi Xasan Siyaax oo ah gudoomiyaha Olombikada ee gobolka Jubbada Hoose halkan ku soo gobleeyay waxaan ku leeyahay koob marka ciyaartu waa soo gobleeyay waxaan ku darsanaynaa laba ayaan ku darsanayaa anoo ku hadlay magaca gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Olombikada waxa weeye maanta waxaan taaganahay farxad maalihiid waxaan rabnaa dib u heshiisiinta gobolka Jubbaland State waa in laga bilaabo ciyaaraha ma ahan labada yaalo la sugeeyo oo mataqaana oday dhaqameed ah oo meel la fadhiisay waa in xaafada la qabtaa waa in ciyaaraha isku soo dhaweeya waa in dadka isdhex galaan meeshan qabiil balahan dad balahan ciyaaraha waxay ku soconayaan si walaaltinimo iyo horkaca dib u heshiisiinta waa in ciyaaraha laga bilaabo meel kale loo raadin waana markii labaad oo ay kooxda isku filan ay ku guuleysato horyaalka kooxaha heerka koowaad ee magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed Somali Channel Kismaayo war wixii naga soo gaaray dalka iyo dibadda oo aanu idinkaga soo gudbinaynay telefishinka caalamiga ah ee Somali Channel studio magaalada Nairobi anigoo Shukri Maxamuud Afraxna aan idin soo gudbinayay ayaa inta ku eg tan iyo inta aanu dib
u kulmi doono ayaan idinkaga tegayaa dhammaanba ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta ah ciid wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.